bishii February oo ahayd maalin Arbaca waxa magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal soo gaaray wafdi ballaadhan oo hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo markaas uu weeliyay gudoomiyaha xisbiga Kulmiye ana musharax madaxweynaha xisbiga Kulmiye Muuse Biixi Cabdi wafdigu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland intii soo gaaray magaalada Boorame waxa soo dhaweyn ballaadhan loogu sameeyay degmada Dila oo markaas si miiqaamkeedu aad u sareeyo lagu soo dhaweeyay balse dadka wafdigaasi soo dhaweeyay ayaa waxa la sheegay in la siinayo raashin dadkaasi ay markii dambana ay la kulmeen wafdigu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo degmada Dila soo gaaray diiwaan gelintuna de waxay furan tahay doorashada marka si kala weyno diiwaan gelintu waa hordhici ololaha wadani waxaan tahay wadani aynu noqono wadani bishii February oo ahayd maalin Khamiisa waxa magaalada Boorame soo gaaray wafdi ballaadhan oo hogaaminaya gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ana gudoomiyaha xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyagoona ujeedada mas'uuliyiintaasi socdaalkooda Boorame ku yimaadeen lagu sheegay inuu salka ku hayo sidii ay bulshada reer Awdal ay ugu wacyi gelin lahaayeen diiwaangelinta codbixiyaasha mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga UCID oo iyagna hawlo shaqo ku soo gaaray magaalada Boorame ayaa si weyn looga dareemay imaatinka xisbigaasi oo taageero badan ku lahayn gobolka Awdal maalmihii ugu dambeeyay waxa magaalada Boorame ay la ciirisay wufuud kala duwan oo markaasi kala ahaa muxaafid iyo mucaarad khibrada ku xeel dheer arrimaha siyaasadda Soomaaliland inta badan ka faalooda ayaa socdaalada mas'uuliyiinta muxaafidka mucaaradka ay socdaalada ku joogaan Boorame ku tilmaameen mid xambaarsan olole siyaasadeed oo markaasi ay doonayaan inay qulubta shacabka reer Awdal ay hantiyaan gudoomiyaha xisbiga Kulmiye Muuse Biixi Cabdi ahna musharax madaxweyne xisbiga Kulmiye ee doorashada 2017 soo socota ayaa muddada gobolka Awdal caasimadiisa Boorame oo ku sugnaa ayaa waxa uu kulana kala duwan u la qaatay beelaha dega gobolka Awdal iyadoo kulanadaasina ay ahaayeen kuwa adag oo markaasi la isku jilbalaabtay ujeedada kulanadaasina ayaa waxa la sheegay inay salka ay ku hayeen sidii ay u taageeri lahaayeen musharaxnimada Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ana gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo wafdigu hogaaminayay ayaa maalmihii u dambeysay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ay ku sugnaayeen ayaa iyagna dhankooda kulana xasaasiya la yeeshay siyaasiyiinta bulshada ku dhaqan gobolka Awdal oo markaasi si adag looga wada hadlay sidii xisbiga wadani uu codka gobolka Awdal ka soo baxa uu heli lahaa aqlabiyada codadkaasi hoteelka Rays ee magaalada Boorame ayaa maalmihii aynu soo dhaafnay ahaa mid aad ka dareemayso loolanka siyaasadeed ee ka socda magaalada Boorame oo markaasi halkaasi ay goobjoog ay hayeen muxaafid iyo mucaarad oo ku jiray loolan adag xisbiga UCID ayaa guud ahaanba maalmihii aynu ka soo tagnay siyaasadiisa laga dareemin magaalada Boorame iyadoo mas'uuliyiinta xisbigaasi qaar ka tirsan la sheegay ay socdaalo badan oo micno badan lahayn ay ku marayaan xeebaha gobolka Awdal gudoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID Injineer Faysal Cali Waraabe maruu socdaal shaqo ugu maqnaa dalka dibadiisa ku soo laabtay warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ku sheegay socdaalada ay ku yimaadeen mas'uuliyiinta ka tirsan xisbiga wadani iyo Kulmiye inuu yahay loolan siyaasadeed isla markaasina uu sheegay in waqtigii ololaha siyaasadeed ayna wali la gaarin diiwaangelintii aad moodid in labadii xusbi ay ka dhigeen campaign siyaasadeed waa labadii xusbi dawladdu ka koobneed iyagoo lacag hantidii ummadda isticmaalaya labada xusbi ku tartamayaan ana kaa baabuur badan iyo ana kaa baabuur badan
inay ka dhigaan wixiiba fawda iyo campaign waqtigiisa aan jirin wasiirada socdaan MPyada socdaan wakiilada xisbiga socdaan baarlamaanka waxaasna maaha sharciga adduunka laga shaqeeyo maaha ninka wakiilkii waxa weeye hadduu campaign ganayo marka hore waa in wakiilnimada ka tagaa weeye gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ee gudoomiyaha xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa saaka oo baxay dhinacaasi xeebaha gobolka Awdal ayaa yeegna wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa yeegna dhinacooga oo baxay xeebaha gobolka Awdal iyagoo markaasina dareemayso in labada xisbi uu loolan adag oo siyaasadeed u dhaxdooda ka curtay wararka naga soo gaaraya degmada Quljeed ayaa noo sheegay in mas'uuliyiinta kala hogaaminayeen labada xisbi wadani iyo kulmiye isku soo gaadheen degmada Quljeed oo markaasi halkaas ay kala kulmeen soo dhaweynay isxabaarsan oo wata muujada siyaasadeed si kastaba arintu waatee wax laga warsugi doonaa waxa ka soo baxa socdaalada ay mas'uuliyiinta xisbiyada wadani iyo kulmiye ay ku marayaan xeebaha gobolka Awdal iyo halka uu saldhigto loolanka siyaasadeed ee ka dhaxbilaamay xisbiyada wadani iyo kulmiye waxaana xusin mudan in abaara baasan muday ku dambeysay ay xeebaha gobolka Awdal ay ka jireen ayaa hadana mas'uuliyiinta xisbiyada wadani iyo kulmiye la eegi doona waxay bulshadaasi abaaruhu saameeyay ay la hortagaan